السلام عليكم haddaad ku cusubtay kanaalka nafaqa channel fadlan taaba calaamadan subscribe-ka halkan intaas kadib wax kasta oo aanu soo dhignaa si uu kuu soo gaadho taaba calaamada gambaleelka ama jaleska halkan liin dhanaantu waa midho ka mid ah khudaarta waxayna ka tirsan tahay qoys dhireedka loo yaqaan citrus family liin dhanaantu waxay caan ku tahay dhadhankeeda dhanaanka iyo biyaha ay siidha badan ee laga helo midhaheeda sidaa darteed geedka liin dhanaantu waa mid cagaar weligiis ah oo ka dherer gaaban geedaha kale ee liinta haddaba liin dhanaanta waxaa laga helaa faa'idooyin badan oo aynaan halkan ku soo koobi karin laakiin waxaynu ka hadli doonaa insha'llah waxtarka iyo faa'idooyinka caafimaad ee la isku waafaqsan yahay ee liin dhanaanta ugu horeyn liin dhanaantu waa aashito laakiin markii ay jidhka gudaha u gasho waxay yaraysaa aashitada jidhka taasoo isu dheeli tiraysa dheecaanada jidhka sidaa darteed liin dhanaanta waxaa aada ugu badan fitamiin C-ga fitamiinkana waxa uu xoojiyaa difaaca jidhka wuxuuna la dagaalamaa infekshanada ay keenaan fayrasyada sida hargabka iyo weliba ifilada sidoo kalena liin dhanaanta waxay caawisaa shaqada beerka waxayna dhalaalisaa waxyaabaha halista ku ah beerka sida aashitada loo yaqaano uric acid waxay kaloo mishaa dacarta sidaa daraaddeed waxaa lagula taliyaa in qofku subaxdii hore uu cabo biyo liin dhanaan oo qandac ah ama diiran si uu beerku u nadiifsamo sidoo kalena liin dhanaantu waxay nadiifisaa mindhicirada waxayna kordhisaa dubaaxidda mindhicirada si ay jidhka uga saaraan waxyaabaha mindhicirada ku dhex jira waxay kaloo la dagaalantaa gooryaanada caloosha ku jira sida toonta oo kale liin dhanaantu waxay kaloo daawo u tahay cudurka cirid dhiigga ama loo yaqaano iskarfi xanuunkan oo aada ugu badan badmaaxayaasha ayaa waxaa lagula taliyaa in liin dhanaan ku filan ay u qaataan safaradooda dhinaca kalena liin dhanaanta waxaa ku jirta aashitada loo yaqaano citric acid taasoo jidhka ka caawisa inay misho ama dhalaaliso dhagaxaanta ku samaysma xameetida iyo keliyaha sidaa daraaddeed dadka ay ku soo laablaabtaan dhagaxaanta keliyaha iyo xameetida waxaa lagu booriyaa inay cunista liin dhanaanta joogteeyaan sidoo kalena qolofta liin dhanaanta waxaa ku jira maado loo yaqaano tenjeretan taasoo la hubiyey inay daawo u tahay xanuunada laleemada ee Parkinson's disease loo yaqaano liin dhanaanta waxay kaloo xal u noqotaa caburka iyo oksijin yarida waxayna siisaa jidhka awood uu oksijin yar ku noolaan karo arrintaasna waxaa la ogaaday markii uu ku guulaystay ninkii ugu horreeyey ee gaadha cidhifka buurta loo yaqaano Everest oo sheegay inuu liin dhanaan keliya cuni jiray intii uu safarka buurta ku sii jiray liin dhanaanta waxay kaloo wanaajisaa aragga iyadoo daawo u ah xanuunada ku dhaca shabakadda isha ee loo yaqaano retina waxaana arrintaa la ogaaday inay sabab u tahay maado liin dhanaanta ku jirta oo loo yaqaano ruutan geesta kalena liin dhanaanta waxay xoojisaa xididada waxayna yaraystaa halista ah in xididada ay dilaacaan ama qofka dhiigbax jidhka gudihiisa uu dhinto gaar ahaan dadka qaba dhiigkarka dhinaca kalena liin dhanaanta waxaa ku jira 22 walxood oo la dagaalama cudurka kansarka kuwaasoo alle ku abuuray liin dhanaanta haddaba hawsha ugu badan ay qabtaan walxahaasi waa hakinta ama joojinta tarmidda unugyada kansarka liin dhanaantu waxay kaloo jidhka siisaa nafaqo kala duwan oo isugu jirta fitamiin C, uric acid, fitamiin B, calcium, birta, magnesium, potassium iyo kuwo kaloo badan sidoo kalena liin dhanaantu waxay nuurisaa maqaarka qofka waxaana loo adeegsadaa in jidhka looga baabi'iyo haaraha wajiga iyo noocyadooda kala duwan waxaana taariikhda la sheegaa in dadka Shiinayska ah ay caruusooyinkooda ugu qubay jireen liin dhanaanta dhowr maalmood ka hor inta aan la aroosin waana arrin cilmi baadhis lagu arkay in liin dhanaantu ay maqaarka ka baabi'iso haaraha iftiinna u kordhiso weliba unugyada dhintayna ay ka dulqaado sidaa daraaddeed laalaabyada maqaarka ku samaysmana way yaraysaa iyo weliba waxyaabo kale ugu dambayntii guntii iyo gabagabadii mawduuceenna liin dhanaantu waa jeermisdila awood buuxa leh waxayna la dagaalantaa caabuqa bakteeriyada iyo fayrasyada qaar oo ay ku samayso waxa loo yaqaano inactivation